وبركاته. أخيارتا أنت أنا ونوحيرن ورنتي ومعد علينا يا وحنا إذن كلا سعودسينا نشيكون بلابنا شيكون ليرادو تحناه وحنا إذن كعصنا يا سبسكرايب كينا يوشير كينا وحنا مركا شيكادان إذن قدها قلا يا وحنا صوت دينينا ما أنت تهجمعها إما أنت تهسنينتا وشيكون أو السعودان تحناه وأنا نرصع أن وحنا إذن هايا شيكات كور كود عادي ويل أو صاحب كيا وأنا وخصل بدن وأنا كفرحة دنتي شكلاس أوكي ويل بجري أو لكن ساعة تخانين بعديو يو دخطة يو حيواس قال هذا لكني عارف كي أصحابه برتي يعني فريندز يو حيوا يو برنامج كلو وده اللي قال وهو لحريرة أصحاب ومخيل وكل إلا أبو باشاسو أوكي أصحابتي وحي برين وخات سيجاري وحيوانات سيجي يمرق حسودي إنه سوقات وخات إنه خيله سودي وما أنت ورث أوكي وسوقات خاتك مال سوق مال شحن وقذا عمله حيا مالاس عمله فليستي خاتك وبلاوي كوي تمسع ويرا هذه كوي تمسع عمل إلا وسع بينهم خاتك وذي أسوء تعبان أو يعني مرخانكي كتنبذيه وكل إلابه وصبح عوسو هذا دانك حافظها عوسو سعدا حافظين فرحد وين أيو لكلنا وضد فديان سوحو زي توختي وكل ما يسودت كان لبع شرع كستو قيلة ستيدنا يو حليا واني قيلة وأكبر السعب كا شيكس أود وحلا الله يا ملها markii saan oo gudaha u galay oo dadkii u fiiriyay dad ma bahan waa dameer okay markuu isku yeeray saaxibka wuxuu leeyahay amal caab maxaa qaldan ma ogaas yani waa markii uu horeysay oo qaad cunaayo dana markaankii tan badiyay zaid uu cunay uu soo baxay wuxuu soo aaday dhanka xaafadda aska jooga ana TV aska daawanayna uu ma saaxibka wuxuu naga sheekay sheekada uu soo maray markuu dhameystay sheekadii wuxuu isku dayay inuu galo isku sheekay Soomaaliland waa taqaaniin yani waa meel musqusho biyaha oo miyaalaan mar waxa lagu qataa caaga mar baaldi lagu qataa wuxuu raadiyaa caag oo biyaha lagu qaadanayo nyaanyuur oo xaafadda iska dhaqan naftarkeeda iska baashaalayso oo soo daashay meeshkas iska jiifta camal wuxuu isku dayay ninkan musqusho la gala caag u maleynaya markii labaad hobside galay nyaanyuurta la baxay wuxuu galay musqushii website kaas caawna waa idin soo daynayna maanta ay tahay jimco sheekadaasna la qayb qaata in waa sheekooyin socdaan subscribe-kiin iyo sheekiin waa loo baahan yahay because waxa sanaan sheekooyinkan la socda waxaan aad u mahad celinayaa inta la socoto barnaamijkeena Boji Group